markay dhegaysanayow caawa waxaan rabaa inaan kuu gudbiyo oon kuu sheego darsigeennii shanaad ayaan maraynaa caawa darsigeenna shanaad wuxuu ku saabsan yahay adkaarta la akhristo ee nebigeennu ina baray sala allahu calayhi wasalama caawa waxaan qaadanaynaa laba dikri ayaan qaadanaynaa ama laba duco ayaan qaadanaynaa labadaa ducaynu caawa qaadanayna waxay kala yihiin ducada markii musqusha la gelayo laga rabo qofka iyo ducada laga rabo qofku markuu musqusha ka soo baxayo ducada laga rabo inuu akhristo labadaa duco ayaan rabnaa inaan caawa barano ducada musqusha marka la gelaya la baranayo faa'iidadeedu waxay ku saabsan tahay ilaahay baa laga magan gelayaa jinka iyo shayaadiinta farfadhida musqusha dhexdeeda ee hoyga iyo guriga u yihiin markii laga soo baxayana ilaahay baa lagu xamdinayaa oo loo mahadnaqayaa wanaagga uu u sameeyey qofka oo ilaahay kaadidii saxaradii culayskeedii iyo dhibkeedii iyo xanuunkeedii inuu ka soo qaaday oo ay ka soo baxeen shayaadiintii meeshaa ku jirtayna ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka magangeliyey labada duca ayaan baranaynaa ducada koowaad marka qofku markuu musqusha gelayo nebigeennu wuxuu ina baray sala allahu calayhi wasalam lugta bidixdaa inaad musqusha ku hormariso midigtana aad gadaal ka soo geliso lugta bidixdaad la gelaysaa marka hore kadibna midigta ayaad dambaysinaysaa markaad ka soo baxaysana midigtaa soo hormarinaysaa oo bannaankaa usoo bixinaysaa bidixdana way ku dambaynaysaa musqusha sababtuna waxa weeye midigtu mar walba way sharaf badan tahay ayadaa musqusha markii laga soo baxayana bannaankaa lagu soo hormarinaya lugtii midig tahay markii musqusha la gelayana bidixdaa lagu hormarinaya musqusha oo midigtaa bannaanka lagu dambaysiinaya leanna bannaanka iyo musqusha bannaanka ayaa ka karaamo badan musqushu waa meel qashin iyo saxari iyo kaadi iyo shayaadiini ay joogto wey markaas aad musqusha gasho oo lugta bidixda aad geliso waxaad dhahaysaa bismi illaah allaahuma inii acuudu bika min alkhubuti waalkhabaa'ithi waxaad keligeed dhihi kartaa bismi illaah way kuu filan tahay keligeed inaad tirahdo inaad israaciso oo tirahdo bismi illaah allaahuma inii acuudu bika min alkhubuti waalkhabaa'ithi inaad tirahdana way kuu bannaan tahay waxaa kaloo kuu bannaan inaad tirahdo allaahuma inii acuudu bika min alkhubuti waalkhabaa'ith oo halkaa keliya akhrisato bisinkiina ka reebtana way kuu bannaan tahay bismi illaah lama ogola bismi illaahi araxmaani araxiim nebiga mayna ka sugnayn bismi illaah waad dhihi kartaa bismi illaah allaahuma inii acuudu bika min alkhubuti waalkhabaa'ithna waad dhihi kartaa allaahuma inii acuudu bika min alkhubuti waalkhabaa'ithina waad dhihi kartaa macnaheeduna waxa weeye allaahuma allahayow inii acuudu bika waxaan kaa magan gelayaa min alkhubuti waalkhabaa'ith jinka kiisa ragga ah ee ku jira meesha musqusha ah iyo jinka kooda dumarka ah ee musqusha ku jira ayaan kaa magan gelayaa allow sidaasaad dhahaysaa somaydaan in badan arag musqul qof galay ama gabar ama wiil oo la dhirbaaxay oo xanuunsaday oo culummada loogu yeeray oo laga dhex dhawaaqay oo jinku ka dhex dhawaaqay somaydaan maqal arrintaasi waxay ka timaadaa markuu musqusha gelayey muuna adkaartii la imanin adkaartaasoo ahayd bismi illaah ama bismi illaahi allaahuma inii acuudu bika min alkhubuti waalkhabaa'ith allaahuma inii acuudu bika min alkhubuti waalkhabaa'ith oo keligeed ah muuna dhihin ducadii kadib baa qofkii shayaadiintii meesha ku noolayd ee guryaha u ahayd ayaa dhirbaaxaya ayaa balaayo ku samaynaya markaasay ka dhex dhawaaqayaan gabadhii ama wiilashii inta badanna dumarka u badanoo dumarku waa inta badan masaakiin weeye ama caadi qabtaa gabadhii ama waxaa laga yaabaa umul inay tahay ama waxaa laga yaabaa si kale inay u xanuunsan tahay ama dumarkuba cunsuriyadooda maba ahaba dadka inta badan diinta dhaqankeeda ku dadaala ma aha intooda badan dumarku waa looga badiyaa inay xasuustaan ku dhaqanka iyo adkaarta iyo xilli walba dikrigii iyo adkaartii loogu talagalay inay la yimaadaan waa looga badan yahay ragga waxaa laga yaabaa xataa isagoo jaahil oon aqoon lahayn inuu mar walba ku dadaalo mar kasta uu akhristo adkaartii nebi maxamed ka sugnaatay ama intii awqaadiisa u badan inuu akhristo walidaalika inta badan ragga shayaadiinta iyo isha iyo waxyaabahaasi way ku yar yihiin dumarkaa ku badan lianna xirkoodaa yar mar walba ama musqul ha noqoto ama hurdada marka la seexanaya ha noqoto ama marka laga soo kacaya ha noqoto ama adkaarta bacda almaqrib la aqriya ha noqoto ama bacda subxi adkaarta la aqriya ha noqoto ama salaadaha kale saddexda cishaa'iga iyo maqribka iyo duhurka iyo casarka iyo salaadaha xilliyada noocaas ah adkaarta la aqriya maba akhristaan inta badan oo wayba iloobaan sal ajrigeed bay ugu badan tahay gabadhii inay ili ku dhacdo oo laga dhex dhawaaqo oo jinku ka dhex dhawaaqo raggana ugu yar yihiin midda kale jamaacaadkii maadaamayna waajib ku ahayn jamaacaadka markii masaajidka aad ka qayb gasho adkaar fara badan ood xusuusan lahay aadan xusuusateen bannaanka haddaad joogto ayaad xusuusanaysaa walidaalika ayagu way ku yar yihiin jamaacaadkii masaajidda inan waajiba kuma ahe xasuustina way ku yaraatay adkaarta ay xusuusanayeen raggana inta badan jamaacaadkii iyo masaajidaday ku tukadaan markaasay xusuusanayaan adkaartii iyo xilli walba dikrigii loogu talagalay marka caawa dikrigaas waxaan leeyahay gabadha muslimkaa wiilka muslimkaa hooyada muslimkaa aabbaha muslimkaa qof kastoo muslim oo ha ka tegin markaad musqusha gelayso inaad tirahdo bismi illaah maxay ku yeeli carabka way ku dhib yartahay bismi illaah ilaahayna naftaadu ku badbaadinayaa ajarna waad ku heli alcajiib ajar baa lagu siin
oo ajar baad ku heli ajarkuna sabab wuxuu u noqon janno inaad gasho iyo khayr inaad hesho oo jannada ilaahay lagu geliyo ilaahay raalli ahaanshihiisa ayay ku gaarsiinaysaa waa lagugu xifdinayaa miisaanka xasanaadka lagu saarayaa marka qof walowba ducadaa ku dadaala bismi illaah waxaa kaloo dhihi kartaa bismi illaah allaahuma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'is waxaad kalood ku gaabsan kartaa allaahuma inii acuudu bika min alkhubuthi waalkhabaa'is jinkaa laga magangelayaa ragga iyo dumarka ahee ku dhex nool ee wax ku dhex fasahaadiya meeshaa dhexdeeda ee dhibaatooyinka kuu geysan kara ugu yaraan nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxa uu kuu geysan kara waxa weeye inuu kugu qoslo cawradaadii markuu daawado oo kugu qoslo uu kugu wijiriyo uu ku fiiriyo cawradaadii haddii kalena dhibaato waa kuu geysanaya ducada labaad waa ducada nebigeennu uu ina baray markaad musqusha ka soo baxdo oo soo xaaje gudato inaad aqrisato ayadana ajar baad ku heli miisaanka xasanaadka laguu saari ilaahay baad ku shukriday dhibku kaa keenay ducadaasi maxay tahay waa duca aad u gaaban allaahuma maxaad haysaa gufraanaka umaadihi gufraanaka allow dembi dhaafkaaga sababta meeqa dembi baad samaysay meeqa macaasi baad samaysay meeqaad dad xamatay meeqaad dad wax ka sheegtay meeqaad dayntoodii bixin weyday meeqaad si xun u fiirisay meeqaad xamatay intaasoo dhan ba adoo dembi galay cibaadooyinkii aan si fiican u gudanin khayraadkii si fiican u samaynin haddana musqushaa markay kaadi ku qabato ama saxara ku qabateed gasho ilaahay dembigii kuuma qabanayo kaadidii kuguma joojinaya iyo xaajadii ilaahay wuu kaa keenayaa ilaahay baa kuu dembi dhaafay dembigaad gashay muuna kuu qabsanin taa waa inaad tidhaahdo gufraanaka allow dembi dhaafkaaga waxaa nabigeenna ka sugnaanin bidcana ah inaad tidhaahdo alxamdu lilaahi aladii adhaba canii aladaa wa caafaanii cama baqiya bihi iyo wixii lamid ah qolyaheena shaaficiyada fiqiga in badan waxaad ku arkay iyagoo ducadaa sheegaya markuu qofku musqusha ka soo baxo waxay ku leeyihin musqusha qofku markuu ka soo baxo ha aqristo ducada nebi maxamed kamayna sugnaanin wa khayru lhadyi hadyu muxammadin sala allahu calayhi wasalam hadyi iyo dhaqan iyo dayasho cid lagu daydana waxaa ugu mudan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam ajar baad ku heli dayashadiisa khayr baad ku heli ilaahay sharka iyo xumaanta ayuu kaa baalmarin oo kaaga tirtiraya laakiin dhaqan nebi maxamed uuna sheegin oo nin culamo ah uu sheegay haddaad samayso ama xadiis daciif oo nebi maxamed ka sugnaanin laga qaadanayo laga deliishanayo ama lagu sheegay xadiidka daciifkiina waa xadiidka nebi maxamed uuna dhihin ee dad kala samaysteen weeyaane waxa weeye ajar ka heli maysid ilahayna kugu badbaadi maayo marka ducada nebi maxamed ka sugnaatay waa kelimada yar maxay tahay gufraanaka wey gufraanaka allow dembi dhaafkaaga gufraanaka maxaa kuu kelif inaad tirahdo waxaa nebi maxamed ka sugnayn oo haddana dheer oo xifdigeeduba dadka dhibayo alxamdu lilaahi aladii adhaba cani aladaa wa caafaanii cama baqiya bihi ducadaasi nebi maxamed kama sugnaanin kutubta fiqiga shaaficiyadana in badan baad ku arkay culimmadeenna aqrisata fiqigana in badan baad ku arkay iyagoo dee ducadii xifdiyey oo aqrinaya laakiin ajar ma ku helayaa qofkii ma gutay sunnadii nebi maxamed ma ku dhaqmay maya sunnada nebi maxamed waxa weye gufraanaka intaasaa kugu filan marka caawa labadaa duca ayaan baranay dhinacyahana waan idiin soo saari sidii caadada inoo ahayd hoosna waan idiin soo dhigi ha laga faa'iidaysto labadaa duco hana la xifdiyo ajar iyo xasanaad iyo khayraad badan baa lagu heli balaayo badan iyo masaa'ib badanna way kaa difaaci oo shaydaanku uu ka yahay shaydaanku saad og tihiinba ummaddeennan dagaal buu ku hayaa nebi maxamed ummaddiisa fasahaad walba dil kasta xatooyo kasta khamri oo la cabo daraagis qaad oo la cuno sigaar oo la cabo qashin oo dhan shaydaan baa sabab u ah marka ha la iska ilaaliyo walaalayaal arrintaa ha la iska dhowro waxaana lagaga badbaadi karaa adkaarta nebi maxamed iyo ducooyinku ina baray inaynu xifdino aynu baranno ajarkeenni iyo xasanaadkeennu inagu kordhayaa welibana waxaan idinkula dardaarmayaa sunnada nebi maxamed ka sugnaatay intaynu haysanno waan badbaadaynaaye aan ka fogaana bidcada iyo waxyaabaha dad kale iyo ay sheegsheegeen ha laga fogaado oo sunnada nebi maxamed baynaan koobi karine sunnada nebi maxamed aan ku dheganaano